xoghaye hore dowladda hoose ee degmada Gabiley Axmed Maxamuud Afey iyo aqoon-yahan Cabdo Mahdi Maxamed ayaa taageeray go'aanka madaxweynaha Soomaaliland ku kala qaaday labada doorasho iyagoo sidoo kalena dhaliilo ku hurgufay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cirro mas'uuliyiintaasi oo arintaasi ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen doorashada kala qaaday aad baan taageersanaa waxaan beesha caalamka ku sheegnaa in Soomaaliland ay ku filan tahay doorashada si qafato waxaan nahay qaran buuxa madaxweynaha waxaan ku taageersanahay doorashada kala saaray xisbiga wadani waa nasidaro in maanta ma garanaysaa jiido doorashada isku raaceen dib loo dhigo iyagana waxaan leenahay war taageer arrinkaas bismillaahir rahmaanir rahiim doorashada madaxweynuhu kala qaaday go'aankaasi uu kala qaaday aad iyo aad ayaan u taageersanahay haddii aan maay shacbiga reer Gabiley iyo dhammaan shacbiga Soomaaliland waxaan filayaa inay dhammaantood taageersan yihiin maadaama ay tahay guul weyn waayo laba doorasho isma qaadi karaan marka hore la isku daramahay waxaan u sheegaynaa beesha caalamka waxaan leenahay horta Soomaaliland Ilaahay baa aqoonsaday beesha caalamka horeba xaqeennii bay duudsiyeen oo aqoonsigeennii iyo xornimadeennii aan la soo noqonnay bay duudsiyeen maanta marka ay nooma talin karaanba tan anagu ma ka tashanayna madaxweynaha iyagu go'aanka uu soo saaray ee uu labada doorasho ku kala qaaday waanu ku taageersanahay beesha caalamkana waxaan leenahay qadhuuftada dib u leh gudoomiye Cirro waxaan u sheegaynaa hadduu yahay nin reer Soomaaliland oo muwaadina oo gudoomiye golaha wakiilada oo tartamayo maanta musharaxa doorashadii madaxtooyada waa la soo horeysiiyay taageerada kursi baa doonaysa madaxweyne haddii aad doonayso inaad fadhido kursiga baarlamaanka dee u banay xisbiga cid kale iska sharaxday waan leenahay gudoomiye Cirro waayo imika waxaad wadaa lugna dirir ku taagno lugna boqo taasina ma soconayso waxaan leenahay gudoomiye Cirro ama gudoomiyaha golaha wakiilada ahaw dee amba musharax madaxweynaha ahaw oo doorashada u tartantii madaxtooyada la soo horeysiiyay golaha wakiilada dib loo dhigay taasaan leenahay waanu taageersanahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siiraayo iyo dhammaan intii taageersan waxaan filayaa Soomaaliland dhan inay taageeri doonto insha Allah waxaan leenahay doorasho guul ah oo ay ku guuleystaan idii Ilaahay u qadaray soo gal Cirro tartanka soo gal xisbiyada kale way taageereen oo Faysal uu taageeray gudoomiye Kulmiye uu taageeray daanu waxaan leenahay ha guuleysta xisbiga Kulmiye leenahay waana guul haddaan naga hadho gudoomiyaha baarlamaanka ku hadho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وريه سكرية نوح إبراهيم مقالة Gabiley